kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood inoo daawanaysaan kusoo dhawaada Edlaw Sports Channel oo aad ka daawataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha kubadda cagta. Qodobka ugu horeeya ee aan maanta kusoo qaadanayana waxa uu noqonayaa kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxa ay doonaysaa in ay la seexato xidiga qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Arsenal ee Aaron Ramsey si bilaash ah xagaaga soo aadan. ciyaaryahankan u dhashay dalkaasi Wales ayaa lagu wargeliyay inuu ka tagi karo garoonka Emirates Stadium kadib markii uu dalbaday lacago mushaar fara badan halka kooxda Arsenalna ay arrinkaasi ay ka biididay. waxaana iminka isha ku haysa kooxda marwada duqda oo doonaysa in xidigani ay la seexato kahor inta aan la gaarin xagaaga soo aadan. kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa waxa ay xiiseynaysaa xidiga 30 milyan ee pound lagu qiimeeyo ee qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Watford una dhashay dalkaasi France Abdoulaye Doucouré oo 25 jir ah. laacibkan ayaa sidoo kale waxa uu target u yahay kooxda Everton oo uu leeliyo tababarihiisii hore ee Marco Silva. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay hogaanka u haysaa hardanka lagu jiro saxiixa daayarka la yaabka leh ee ka tirsan kooxda Ajax Frankie de Jong 22 jirkan u dhashay dalkaasi Holland qadka dhexana ka ciyaara ayaa waxaa lala xiriiriyay dhowr kooxood oo ka dhisan horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee Premier League gaar ahaan kooxda Sky Blue ee Manchester City. hasaatee kooxda Barcelona ayaa u muuqanaysa in saxiixa xidigan Frankie de Jong ay ku guuleysanayso. 35 jirka u dhashay dalkaasi France una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich Franck Ribéry ayaa diyaar u ah inuu kordhiyo qandaraaska kooxdiisa hal xilciyaareed oo kale. arrinkan ayaa imaanaya kadib markii xidigan Franck Ribéry uu la qaadanayo xilciyaareed wanaagsan kooxdiisa Bayern Munich ee ku ciyaarta garoonka Allianz Arena Stadium. kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay ku qasbanaan doontaa in ay jibiso rikoorkeeda suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii ay doonayso inay la seexato xidiga u ciyaara kooxda ka dhisan dalkaasi France ee Lille Nicolas Pepe. sababtoo ah kooxdiisa ayaa xidigan 23 jirka ah ee garbaha kaga ciyaara xulka qaranka dalkaasi Ivory Coast waxa ay madaxiisa dul dhigtay lacag dhan 27 milyan oo pound. xidiga u safta kooxda kubadda cagta ee Lyon qadka dhexana kaga ciyaara xulka qaranka dalka France Nabil Fekir oo 25 jir ah kaasi oo mar ku dhawaaday inuu ku biiro kooxda Liverpool xagaagii aynu iminka ka soo gudubnay ayaa loogu yaboohay inuu u dhaqaaqi karo kooxda Real Madrid. sida ay daabacday majalada Marca ee ka soo baxday dalkaasi Spain, Nabil Fekir ayaa suurtagal ah inuu u boqolo hal ciyaareedka soo aadan kooxda ku ciyaarta garoonka Santiago Bernabeu Stadium ee Real Madrid. kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxa ay xiise baan u qabtaa xidiga Manchester United ka tirsan ee Romelu Lukaku ayadoo doonaysa in ay la seexato 25 jirkan afka hore kaga ciyaara xulka qaranka dalkaasi Belgium-ka. Lukaku oo dhaleecan fara badan kala kulma taageerayaashiisa Manchester United ayaa goor aan sidaasi u sii fogeen waxa uu ka dhawaajiyay in uu xiiseynayo in mustaqbalka uu mar-uun ka ciyaaro seerada dalkaasi Talyaaniga halkaasi oo walaalkiis Jordan Lukaku uu ka ciyaaro. kooxda Juventus ayaana doonaysa in ay Lukaku bedel kaga dhigto weeraryahanka sii duqoobaya ee Mario Mandzukic. saate waxaa laga dhursugayaa in kooxda Manchester United ay aqbali doonto in xidigeeda Lukaku ay ka iibiso kooxda Juventus iyo in kale. waa tahay daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa maanta barnaamijka ciyaaraha oo aad ka daawanayseen Edlaw Sports Channel. adina waad ku mahadsantihiin daawashadiina. intaan barnaamij caankan oo kale mar kale hawada dib ugu kulmi doono waa saaxiibkiin aadan Edlaw in leh sida iyo amaana Allah. ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso. mahadsan.